Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waqti wanaagsan khiyaaray saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo xilli walba ay idin tahay. Waa walaalkeen Axmed Nuur Xasan Khayre oo qaar ka mid ah asxaabta aynu halkan ku wada xiriiri jirnay in muddo ah aynu ku kala maqnayn oo aanan waxba soo dhigin sababo iyo arrimo badan oo jiray awgood, balse iminka aan kasoo lug baxnay qayb ahaan oo aan rajeynayno wixii hadda ka dambeeya in halkan Las Academy aynu si joogto ah usoo dhigi doono muuqaalo isugu jira casharo iyo kuwo kale oo aad u xiiso badan. Waxyaabo badan oo aan idiin qarinayo ayaa jira, balse iminka waxaan doonayaa cashar ka mid ah casharadii luqadda Ingiriiska in aan marka hore idiin soo gudbiyo, deete ayaan kala war qaadan doonaa amase aynu wadaagi doonaa waxyaabaha cusub ee aynu doonayno in aan kusoo kordhino kanaalka, iyadoo barashada luqadda Ingiriiskuna iyo waxyaabaha kale ee aqoonta la xiriirana ay halkoodii inoo ahaan doonaan. Kusoo dhawaada casharkeena maanta oo ah mowduuc ku saabsan Ciidul Adxa ama Ciida Carafo oo dhowaan muslimiintu meel kasta oo ay joogaan ay u dabaaldegeen. Topic about Eid al-Adha. Mowduuc ku saabsan Ciidul Adha. Topic about waa mowduuc ku saabsan Eid al-Adha. Ciidul Adha. This topic mowduucan you will learn, waxaad ku baran doontaa ama ku ogaan doontaa, labada waa la yiraahdaa laane barasho ama ogaashee, money information xog badan about oo ku saabsan Eid al-Adha, Ciidul Adha, and the joy and happiness, iyo farxadda iyo raynraynta. Joy iyo happiness waa farxadda iyo raynraynta that is placed, taasoo la dhigay ama la geliyey on the hearts, qulubta of Muslims, muslimiinta everywhere, meel kasta. Adults and young people, dadka waaweyn iyo waa dadka yaryar iyo kuwa waaweyn. And we will know, waxaanan ogaan doonaa, it is importance, muhiimadeeda waa muhiimadda ciide, in the hearts ay ku leedahay qulubta of Muslims, muslimiinta, because maxaa yeelay of the rituals, munaasabadaha of the Hajj, munaasabadaha xajka, maadaama munaasabado la xiriira xajka la sameeyo bishaan. All these dhammaan kuwan waa xogtaan ama warbixintaane, and many more iyo qaar kale oo badan, you will be learned, waxaad ku baran doontaa ama ku ogaan doontaa hiya halkan. What is Eid al-Adha? Marka ugu horeysa horta waa maxay Ciidul Adha? What is waa maxay Eid al-Adha? Ciidul Adha waa maxay? Muslimiintu are waiting, waxa ay sugayaan for the holidays, fasaxyada, eagerly, si aada ay u sugayaan, for it is happiness and pleasure, farxadooda ay fasaxyadaasi wataan. Happiness and pleasure sidoo kale waa farxadda labadaba. In the hearts, qulubta ama qalbiyada of young and old, dadka waaweyn iyo kuwa yaryar. Old, dadka waaweyn, and young iyo kuwa yaryar. Everyone, qof kasta, loves, wuxuu jecel yahay Eid al-Fitri, Ciidul Fitriga ayuu jecel yahay, and Eid al-Adha iyo Ciidul Adha. Qof kastoo muslimana labadaas ciidood waa uu jecel yahay oo waa ciidaheena ama munaasabadaheena ama fasaxyadeena. Hiya halkan we will learn, waxaan ku ogaan doonaa more information, xog badan about oo ku saabsan Eid al-Adha, Ciidul Adha, through anagoo u marayna macluumaadkaas aan ogaanayno an English topic, mowduuc Ingiriis ah, English topic, mowduuc Ingiriis ah, to know, si aan u ogaano what is Eid al-Adha, waxa Ciidul Adha ay tahay. Eid al-Adha, Ciidul Adha. Eid al-Adha, Ciidul Adha is one of the most important holidays, waa mid ka mid ah fasaxyada ugu muhiimsan for Muslims, muslimiinta, every year, sanad kasta. In addition to, oo ay dheer tahay Eid al-Fitri,
ciid alfitri ama ciidulfitriga ayaa sidoo kale dheer, waana labada fasax ama holiday ama munaasabadood ee ugu saameynta badan muslimiintu ama ugu muhiimsan. Eid al-Adha, Eidul Adha is one of the most important, waa mid ka mid ah holidays fasaxyada for Muslims muslimiinta every year sanad kasta. In addition to waxaa dheer Eid al-Fitr ayaa dheer. Eid al-Adha, Eidul Adha kamis waxay timaadaa on the 10th of day, maalinta 10aad of Dhul Hajj ee Dhul Hajjka, bisha Dhul Hajj la yiraahdo waa bisha Hajjka. It follows waxayna daba joogtaa ama daba socotaa the day of Arafah, maalinta ciid waxay daba joogtaa ama ku xigtaa maalinta Carafo la taagan yahay, which is a blessed and rewarding day, taasoo ah maalin abaalmarin iyo maalin naxariis, in which taasoo Muslim pilgrims xujayda muslimiinta ah pilgrims waa xujayda muslimiinta ah perform ay gutaan the most one of the meeshaan ku dar waxaa ka maqan one of the most important pillar, mid ka mid ah tiirarka, waa mid ka mid ah one of the mid ka mid ah most important pillar, tiirarka ugu muhiimsan, most important ugu muhiimsan pillar tiir of Hajj ee Hajjka, mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan muslimiinta ama islaamka waa Hajjka. Eid al-Adha, Eidul Adha is mainly related, waxay aad ula xiriirtaa ama ay la xiriirtaa to the history sheekada of our master Abraham, ee sayidkeeni Abraham ama Ibrahim, waa Nabi Ibrahim, peace be upon him, nabadgelyo korkiisa ahaatee, peace be upon him, nabadgelyo korkiisa ahaatee. When markii he saw uu arkay in his sleep, uu hurdadiisa ku arkay that he sacrificed in uu huray his son Ismail, wiilkiisa Ismail, waa markii riyada lagu tusay oo la yiri wiilkaaga Ismail gowrac, oo kadibna uu wiilkiisa u sheegay oo uu ogolaaday, kadib markii uu gowracii u soo diyaar garoobana oo gowraci rabana loogu bedelay wanka ama neefka ariga, waana sababta ama sida ay ku timid Eidul Adha ama ciidan gowrac. Muslimiintu slaughter waxay gowracaan xoolo, gowrac ayay sameeyaan on this Eid ciidan to satisfy Allah, si ay alle u raali geliyaan. Slaughter gowracu shall be with cows, waa inuu noqdaa lo, camels geel, or sheep ama ido, or goats ama riyo, waa 3 dunyo ama 4 dunyo oo muslimiintu ay dhaqdaan, oo cows lo'dii, camels geeli, sheep sidaan jamac ku yahay, idihii, goats ayaa ka maqan oo iskaga cadfantaa marka. Muslimiintu kiin waxa ay ka helaan ama ay doonaan to feed the poor, inay quudiyaan masaakiinta and needy iyo kuwa u baahan, from this meat, inay hilibkan ku quudiyaan, hilibkan ay qaleen oo xoolaha ay gowraceen. Muslimiintu kiin waxa ay ka helaan ama ay doonaan to feed, inay ku quudiyaan the poor, masaakiinta and needy iyo kuwa u baahan, from this meat, hilibkan oo xoolaha ay qaleen. So sidaa daraadeed it was called, waxaa loogu yeeraa Eid al-Adha, waxaa loogu yeeraa Eidul Adha. Muslimiintu perform waxay gutaan Eid prayer, salaada ciida, in the morning subixi. It starts waxay bilaabataa salaadaasi from the rise, laga bilaabo soo bixitaanka, laga bilaabo the rise soo bixitaanka of the sun ee qoraxda, until ilaa laga gaaro al-suhur noon prayer, salaada duhur, waa salaada duhur ilaa laga gaaro. And it is desirable, waxaana la doorbidaa
and it is desirable waxaana la doorbidaa to perform in la guto it salaada in the morning subxi maadaama ilaa duhurkii ay jirto in subax hore la guto ayaa la doorbidaa ama la jecel yahay ama la sameeyaa so that they can slaughter ay u gowrici karaan dadka muslimiinta ah xoolaha ay qalinka u sameyn karaan ama gowraca the udhiyada ama ulhiyada so that they can slaughter ay u gowrici karaan the ulhiyada and after the slaughter kadib gowraca markii la sameeyo and after the slaughter kadib markii gowraca la sameeyo ay gowraca dadku sameeyaan xoolaha qalaan they distribute waxay u qaybiyaan from its meat hilibka xoolaha waxay u qaybiyaan to the poor masaakiinta dadka masaakiinta ah and relatives iyo qaraabada and feed sidoo kalena waxay ku quudiyaan oo ay siiyaan their family qoysaskooda ama their families qoysaskooda and then kadib go waxay aadaan to visit inay booqdaan relatives qaraabada and friends iyo saaxiibada money make qaar badan waxa ay sameeyaan oo dadka ka mid ah muslimiinta cakes doolshiyaal and sweets iyo macmacaano for hospitality waxay u sameeyaan soo dhaweyn oo ay ugu talagaleen dadka u imaanaya inay kusoo dhaweeyaan after visits booqashooyinka kadib families qoysasku may go waxay aadaan to bags beeraha ayay aadaan oo lagu nasto and a children's playground iyo barxadaha carruurta ay ku ciyaaraan adaas ma jirto maadaama halkan children ay jamac tahay and children's playground iyo barxadaha carruurta ay ku ciyaaraan many Islamic countries wadamo badan oo muslimiin ah decorate waxay ku qurxiyaan the streets wadooyinka with lights nalal ay ku qurxiyaan that symbolize taasoo calaamad u ah nalalkee of ciida calaamad u ah it is also sidoo kale desirable waxaa la doorbidaa ama dadku waxaa la doorbidaa to wear in la xirto the most beautiful clothes dharka ugu quruxda badan and to postpone dibna loo dhigo the breakfast quraacda after Eid prayer salaada ciida kadib in dib loogu dhigo quraacda sidaas ayaa sunno ah oo labadooduba waa sunno it is also sidoo kale desirable waxaa la doorbidaa to wear in la xirto the most beautiful clothes dharka ugu quruxda badan and to postpone dibna loo dhigo the breakfast quraacda after Eid prayer salaada ciida kadib dib loogu dhigo labadaasuna waa sunne intaas ayuu ku egyahay casharkii oo maantay aan filayo inuu xoogaa dheeraa sidaa daraadeedna aynu ku soo celin oo aynu dul marnay wixii su-aal ah ama wixii aa fahmi weysay commentiga ayaad ku reebi doontaa anaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan kaaga soo jawaabi doonaa kanaalka hadda wixii ka dambeeya waxaan soo dhigi doonaa ama soo gelin doonaa muuqaalo joogto ah oo isugu jira kuwii waxbarashada iyo kuwo la xiriira sidii qofku noloshiisa ama naftiisa uu ku horumari lahaa iyo sidoo kale waxyaabo wax ku ool ah oo dad aqoon yahanaa ama dad khibrad leh ama dad waayajoog soo ahaa ay yiraahdeen ama ay sameeyeen marka hadda wixii ka dambeeya waxaan rajeynayaa in si joogto ah aynu halkan uga wada socon doono aadina waad ku mahadsantihiin la socoshada iyo daawashada iyo ka qayb qaadashada casharada iyo waxyaabaha kale ee faa'iidada leh ee aynu halkan kusoo gudbinayno wax kasta oo su'aal ah oo aad qabtid commentiga ayaad noo dhigi kartaa anaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan isku dayi doonaa in aynu u aragno oo aan kaaga soo jawaabno haddii ay noqoto si guud iyo si gaaraba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaalkiin axmed nuur xasan khayre oo idin leh amaana allah